maamulka degmada Garadag way weheliyeen ciidanka booliiska ee degmada Garadag iyo kormeer shaqo ugu baxay qaar ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Garadag kuwaas oo dadka reer guuraaga oo ka kala deegaano kala duwan ay isku soo guureen deegaankan oo ay ka mid ahayd Gowsweyne, Fadhiir, Cagalaye, Gudheeri iyo Taygara ayaa maamulka degmada Garadag dadweynaha dhex mariyay waxay kula dardaarmayeen sidii ay nabadda u ilaalin lahaayeen isla markaana ceel iyo cawsba ay si nabad ugu wada caabi lahaayeen iyagoo dadka deegaanka ka codsaday inay soo dhaweeyeen dadka reer guuraaga. Gowsweyne aanu halkan saxaafad ugu qabanaynaa marka koowaad waxaanu dadweynaha deegaanka Gowsweyne iyo dadka soo guuray labadaba ka codsanaynaa inay qolada soo guurtayna nabadgelyada ilaaliso oo ay feejignaadaan qolada lagu soo guuray deegaankana ayna taxaddar weyn muujiso oo dadka ay soo guuray waa dad meel kala duwan ka yimi xasaasiyadiisa xaaladihiisu leeyahay waa nugaalo waa la yaqaano daba godadooda inta badan ma ba xasaasiyad weydo in arrinka loo feejignaado guurtada ilaa de waxa laga yimi ilaa Togdheer ilaa Nugaal meel kasta waa la iska yimi dadkuna kale dhibtiisu leeyahay waa ogtiin qof waliba og yahay taas ay waxa uu nabadgelyada soo diray wax meel aan bay maraysa laakiin dadka soo guuray anagu soo hadaan wixii nala gudban waa ilaalinaa deegaanka waa takuwada deegaanka dhaqan baan u lahayn maqasidan oo kale wax u dhacaan walabada ceel mataana ahaa ee ummadda biyaha u ahayd si dhaqankii aan u lahayn ayuun wadaynaa waynu soo dhaweeynaa harkaynu uga baxaynaa gurigaynu uga baxaynaa oodaynu uga baxaynaa xoolaheenu joojinaynaa waxaynu waraabeynaa xoolaha soo guurtada dhaqankii leenu yaqaanayo suubanaa armaan inta maanta bulshada isku soo guurtay waxa ay ceelasha kaga cabayaan waa nabadgeliyo waxaanu inagu xoojinaynaa oo aanu inii sheegaynaa in la ilaaliyo nabadgelyada oo aynu nabadgelyada meel uga soo wada jeesano oo la soo sheego qofkii nabadgelyada khalkhal gelinaya looga wada dignoonaado marka lama qiyaas karaba miisaanka geela dul fadhiya wax la qiyaas karaba maaha geelaasi wuxuu ka yimi ilaa kilka shanaad ilaa kilkii shanaad baa ceelkaan taagan ka cabaya waxa isu keenay waa abaar ammaan xoojintiisu aad u adagtay waxa soo ceeli waxa u baahan in la joogo in ciidanku joogo in lagu dhex wareego lagu gaaf wareego marka waxa ka hadlay halkaanu taaganahay waa ceelka Cagalaye oo daris la Gowsweyne waxa jooga soo hayaantadii oo Nugaal iyo Hawdba ka timi oo isugu timi labada ceelba cirkaas ay marayaan dadkii oo dad soo qabtay qoryeystaan way yimaadeen fariinta aan halkan ka dirayna anagoo golihii deegaanka Garadag dhan fariinta aanu maanta dirayna waxa weeye mid ay baahi keentay haddii aan dawladdu wax ka qabanna aan macquul si ahaanaynin fariinta aanu dirayna waa 3 soo guurtada oo nabadda ilaalisa haddii nabad la waayo caws la daaqaya ma jiro ee nabadda ilaaliya baan farayaa qolada loo soo guurana waxaan leeyahay nin dhulkiisii lagu soo guuray dee baahi baa wadee hal la soo dhaweeyo dadka hana loo tudo oo halala shaqeeyo ceelasha laga waraabiyo oo waliba qolayaha heshiinada haysto waana ku celin gelina dadka soo guurtada heshiinka oo ku qaali garay Umar Sayre warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadag.